madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay maamulada ugu yaraan 6 jeer kulamo kala duwan laga soo bilaabo 30 Janaayo, 9 Febraayo, 15 ilaa 16 Febraayo, 4 Maarso ilaa 22 Maarso. Shirarkaasi ayaa muhiim u ahaa doorashooyinka Soomaaliya, laakiin ilaa hadda aad ayay uga cagajidayaan madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland. maanto kale inaan wax la qarin baa la qabaaye laba state baan ku joognaa xataa state-yadii waa la kala dhantaalay waa la kala qaybiyay meel xun bay maraysaa marka xaqiiqdu maxaa yeelay ummadu waxay ku nooshahay waa sharci iyo kala dambeyn iyo dastuur haddii la ixtiraam waayo haddii waynu naqaanaa waa soo marnoo ninba walba goofkiisu dib ugu noqon bay noqonaysaa. dadka ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa u arka inuu muujiyay madaxweyne Farmaajo tanaasul badan taasoo ah qaabka ugu wanaagsan ee loo dardargelin karo nidaamka doorashada Soomaaliya la filayo inay ka dhacdo. waxaan ku yiri qol gala wax ku soo heshiiyo qol bay galeen muddo waxay ka shaqeynayeen bil ku dhawaada waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay markii ay soo dhameeyeen yaa waxaan ku yiri ma waxba idin kuga harsan haddii waxaan public soo dhigno oo aan ku heshiino ama ka noqota ma yiraahdeen kama noqonayno wixii arrin waa helnay waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyay. shirka cusub ee uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu ka dhaco Muqdisho, laakiin su'aashu waxay tahay madiidi doonaan hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland kuwaasoo daaha gadaashiisa looga arrimiyo. shuruud cusub may keeni doonaan mise sidii caadada u ahayd ayay qaadi doonaan dhabihii hore ee lagu yiqiinay. maxay tahay sababta ka dambaysa inay mar walba diidaan kulan kasta uu madaxweyne Farmaajo ugu baaqo madaxda Puntland iyo Jubbaland? maxayse tahay sababta ay heshiiskii 17 Sebtembar oo ay saxiixeen wali u beeninayaan ogana cagajidayaan iyagoo door bidaya in dib loogu laabto? maanta waxaan taaganahay inaan la shirin inaan cid isweydiinin yaa talada waddanka lu kula yaa wax laga weydiinaya kullu hada meel baa lagu tuuray. maxaa ka dhigay Kenya meel Soomaaliya looga arrimiyo sida ay qabaan siyaasiyiinta maamulada qaar iyadoo xaaladda cakiran ee muranka badda uu meel xun oo xasaasi ah marayo? runtii dowladda Soomaaliya oo magacii dadka Soomaaliyeed iyadu qaadatay way jiran tahay hadda 30 sano bugtaa maamulkii dowladeed oo hore oo dadka Soomaaliyeed ee inta kala degan ama Kenya degan ama Ethiopia degan ama Djibouti degan meesha qablada u ah oo ay ka sugu jireen badbaadada waxay ahaan jirtay ee dowladda Soomaaliya hadda way burbursan tahay. waxaan qabaa meesha kaliya oo Soomaalida rajinkaas ku dhaqan dib looga yagleeli karo laga toosin karo waa dalka Kenya saasleeya. Soomaaliya waxay qaaday dariiq cusub oo hor leh kaasoo u muuqda in lagaga gudbay nidaamkii wax loogu yeeri jiray, waxayna ka tashatay danaheeda halka dawladihii shisheeye ee mar walba soo dhexgeli jiray meesha laga saaray.